maalin wanaagsan. Happy World Book Day. munaasabada maanta ee bugaagta ama buugga caalamiga ah waxaan rabaa inaan in yar kaga faa'iideysto isla markaasna aan kugu soo gudbiyo wax yar oo ku saabsan buugga ama novelka Hamdabar. magaciisa uu yahay 100 habeen iyo habeen. waxa suurtagal ah inaadan hore wax badan aadan ugu ogeyn. haddii aad ogeydna waxa suurtagal ah inaad aad u fahantay, laakiin markasta aad jeceshahay wax ku saabsan xogtiisa. haddaba isla buugga tafaasiil ma dhiibay, laakiin buugga ayaan in yar isla isaga aan rabnaa inaan ka qaadano. waa qaybta ugu horeysa. haddii aan safxadda ugu horeysa ee aragta ama hordhaca aan inoo soo qabto, ururinta iyo qorista sheekadan oo qaadatay muddo 10 sano iyo wax la jira almost 10 sano. qisooyinka ay ka faaloonayso oo qaybtood dhab yihiin ayaa si mala awaaleysan oo khiyaali iyo farshaxan qurux badan ku dhisan kuugu soo gudbinaya buugga Hamdabar ee magaciisa yahay 100 habeen iyo habeen. waa la socotay Soomaaliya magaciisa yahay 100 habeen iyo habeen. dulmar oo ah qoraaga iyo alifaaga dhacdooyinka xiisaha leh iyo weliba naqshada cusub ee jilista sheekadan ayaa sidaasi ku leh. anaa saas ku leh. okay, haddaba adaan kula hadlayaa markan. ma tahay ruux jecel akhrinta sheekooyinka, ruux la nool waayo badan oo kala gedisan, qaybtood ay guracan yihiin, ruux la nool jacayl, ruux khiyaanada si fudud ula kulma, ruux doonaya inuu noloshiisa wax ka bedelo, ruux qaraamiga ka hela iyo dhacdooyinkii hore, ruux danaynaya qisooyin isbedelka iyo horumarka laga barto, ruux raadinaya dawo uu ku bogsado, jecel inuu barto qaabkii uu u bogsan lahaa, ruux raba inuu naftiisa ku dhiirigeliyo sheekooyin dhab ah ama khiyaali ah, whatever, who cares, yeah. ruux raba inuu naftiisa ku dhiirigeliyo sheekooyin dhab ah ama khiyaali ah, ruux jecel khiyaaliga, ruux jecel nafla hadalka, doonaya si cilmiyeysan inuu isku qaabilo, isku barto, ruux jecel maaweelada, ruux jecel inuu qoro sheekooyinka casriga ah. haddii aad intaasi oo dhan tahay ama qayb tahay ama wada tahay, haddaba tani waa sheekadaadii, kanina waa buuggaagii. waayahay, mawduucyada sheekadu ay ka kooban tahay ayaa waxaa ka mid ah waa culuum, dhiirigelin motivation, cilmi nafsi psychology, taariikh history, cilmiga dadla dhaqanka emotional intelligence, aqoon dhaqamo kala duwan, thaqaafa caama, suugaan, anshax, ethics, oo ku salaysan dhammaantood cilmi. weli ma aragtay ama ma akhristee cilmigii oo lagaaga dhigay sheeko, si marna cilmi aad u baratid oo u akhridid, marna sheeko farshaxankeedu sareeyo aad ugu raaxaysid qalbigaaga iyo indhahaaga. adaa kasoo jawaabi doona. 7daas mawduuc ayaa buddhig u ah oo dhammaantood cilmi ah, isla markaasina sheeko farshaxankeedu sareeyo oo sheeko faneed ah ama novel ah lagaaga sameeyay. sheekadan waa mid ay jilayaal fara badan oo kasoo kala jeeda dalalka Soomaaliya, dabcan sheekadu waa Soomaali, dadkuna waa Soomaali, Israel, Turkish, yeah, American, Kenyan, Moroccan, sax, iyo Korean. dabcan dad Korean ku jira, American baa ku jira, Moroccan baa ku jira, Moroccan American, Turkish baa ku jira, Jewishna waa laga helayaa, waana
sheeko Soomaaliyeed. sidoo kale magaalooyinka lagu jilayo sheekadan ayaa kala ah markaan Soomaaliya ka hadlayno Boosaaso, Kismaayo, Hargeysa, Muqdisho. waxaa soo raaca magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo Istanbul oo ah Turkiga. saddexda dalba sheekada iyo dadkuba way ku nool yihiin. haddaba soo noqdo jilayaasha toddobada dal ama qowmiyadood kasoo kala jeeda ama wadan waa 42 jilaa. akhrista weli ma akhrisay sheeko 42 jilaa ay ku jiraan? waa laga yaabaa iyo kuwa ka badan. waa laga yaabaa in markii ugu horeysay tahay maqasho ama akhrido. good luck. gardaran waa xidigada sheekada waana isla bilan, 2 magac bay leedahay. weli ma akhriday sheeko xidigadeedu ama xidigiisu uu 2 magac leeyahay? way dhacdaa. khadar waa xidiga sheekada ama atooren ama hero saa u taqaanid. xidigaha labaad ee sheekada, xidigayaashu way kala sareeyaan. qaybta labaad xidigaha soo gelaya waa gafane, hanfade, mudey, musubiyaan, kooca, hifato, filfilo. dhammaantood intaa hore waa khaa'imin ama waxay matelayaan ama waaba kabalaadarka dadka ka ah sheekada. ijaabo, dahabo, dahraan, sahra, canab, foosiya, islaan khadiijo, malyuun, oday cabdulle iyo magaado dhammaan waxay aad ugu dhow yihiin shakhsiyaadkan kale xidigada sheekada, waxayna ku jiraan qaybta labaad ee xidigaha ama jilayaasha. martida sheekada isla xidigihii baa inoo socda. martida sheekada waxaa ka mid ah Mambo Polo, Chihiu, Korean, Jack Philippines, American ah, Nizar Saquni oo Moroccan American ah, Cadde oo Malaaq, Iliana oo Jewish ah, Murad Oglo oo Turkish ah, Jaamac Somali Kenyan, Shaqlan, Islaan Cayo, Xundub, Suleymaan, Xukun, Xaali, Suldaan, Muraad, Amira, Ahmed, Sufiya, Mustaf, Jeego iyo Caasho. waa 42 jilaa. haddaba hambabar inuu gacantaada soo galo waa muhiim. aad baan u jecelahay akhrintiisa anigoo weliba 10 sano iyo wax dheer almost 11 sano alifayay, qorqorayay, faygaar buu ku bilowday by the way. haddana waxa ugu jecelahay markasta waa inaan akhriyo. waan jeclahay inaan akhriyo, waana jeclahay inaad akhridid. buuggan more detail ama faahfaahin dheeraada mar kale ayaan ka bixin doonaa. cutubyo badan buu leeyahay oo kala gedisan oo u baahan inaan marar badan kala qaadno. waa buug haddii aad dhigan jirtay kitaabka qur-aanka madaxa ay tahay inaad lugahaaga dhigato. waa buug haddii aad akhrido aad wax badan baranayso, isla markaasina aadan weligaa isdhiibi doonin, lana tacaali doontid waayaha kala gedisan ee nolosha. qisada ayaa kaa caawinaysa ama sheekada ayaa kaa caawinaysa. waxaad baran doontaa wax badan oo laga yaabo inaad sanado ku baran lahayd. dhigo lugahaaga, ma ku dhahayo madaxaaga dhigo. mugdiisa iyo miisaankiisa anigu ma faaninayee markaad akhridid adiga ayaa ka jawaabi doona. waxaan soo gelin doonaa muuqaalo kale oo faahfaahsan isla markaasina aan ku kala qaadi doono cutubyada buuggan. ha moogaanin. Ramadaan Kariim. mar kale ayaan ku leeyahay happy work book day. bye bye.